خير المجالس مجلس القرآن درس يبين حكمة الرحمن يسمو بأرواح العباد إلى العلا ويفسر القرآن بالقرآن. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. waxaynu ku jirnay suuratul baqara, waxaanu ka bilaabaynaa aayadda 25aad. ilaahay markuu ka soo warramay wuxuu u diyaariyey cadowgiisii gaalada ahaa, wuxuu ku lamaanaysiiyey oo uu ku xigsiiyey inuu ka warramo waxyaabaha uu diyaariyey addoomihiisa wan wanaagsan, haddii ay tahay janno iyo haddii ay tahay xuuruciinba. taasina waxay ka mid tahay aljamcu bayna atarghiibi waatarhiib, kulmin la kulminayo jeclaysiinta qofka wax la jeclaysiiyo si uu hanqal taago, iyo cabsigelinta qofka la cabsigeliyo si uu u baqo oo u gaabsado. waxaanu ilaahay isbarbar dhigay xaalka addoomihiisa wan wanaagsan ay ku sugan yihiin iyo xaalka kuwa xunxun ay ku sugan yihiin. ilaahay wuxuu yidhi wabashir, waxaad uga warantaa ama aada ugu bishaaraysaa aladiina kuwii aamanuu rumeeyey, ilaahay rumeeyey, wa camiluu sameeyey alsaalixaat ay alacmaal, camal la sameeyey, camalladaasoo alsaalixaati wan wanaagsan, hadday faral noqoto iyo hadday sunno noqotaba. anna lahum ay bianna lahum, yaga inay u sugnaatay ugu bushaaree jannaatin, jannooyin. ereygan janna waa beerta, laakiin waxaa loo jeedaa beer iyo dhismayaal wada socda. jannooyinkaasoo tajrii ay qulqulayso min taxtihaa ay min taxti ashjaariha wa qusuuriha, fooqyadeeda iyo dhirteeda hoosteeda ay qulqulayso al-anhaaru, wabiyadii. waxaa weeye wabiyadii ilaahay uu ku tilmaamay suuratu muxamed. kullamaa mar kastoo rusiquu la arsaaqo oo la quudiyo, minhaa jannada xaggeeda laga quudiyo, min thamaratin, midho lagaga quudiyo laga siiyo, risqan, arsaaqid ilaahay arsaaqaya daraaddeed, qaaluu waxay odhanayaan haadaakani alladii ay midla aladii, kii ayuu la mid yahay rusiqnaa lanagu arsaaqay ee lanagu quudiyey min qablu, hadda ka hor. kii markii hore lana siiyey ee jannada lanagu siiyey ayuu la mid yahay. markaa waxay isaga eg yihiin dhankii muuqaalka, waxaanay ku kala duwan yihiin dhankii dhadhanka, se ilaahay baa ku tilmaamaya inta dambe. wa utuu, waa loola yimi bihi ay birisqi arsaaqdii, mutashaabihan, xaal uu yahay mid isu eg, oo barhkiiba barhka kale uu u eg yahay xagga midabka, xagga dhadhankana uu kaga duwan yahay. ahlulcilmiga qaarkood waxay ku fasirayaan inay odhanayaan kan hadda jannada lanoogu keenay wuxuu la mid yahay kii adduunyada aanu ku haysanay, laakiin qowlkaasi waa qowl laga xoog badan yahay. ibnu cabbaas radia allaahu canhu wuxuu leeyahay waxaa ilaahay adduunyada uu inagu siiyey iyo waxaa jannada yaallaa waxay wadaagaan oo keliya magaca, wax isku dhadhana oo isku xajmiya ma aha. walahum waxaa u sugnaaday fiihaa, jannooyinka dhexdooda waxaa ugu sugnaaday aswaajun, xaasas, min alxur, xaasas baa u sugnaaday, xaasaskaasoo mutahara, la daahiriyey oo la nadiifiyey, kor iyo kalba waa la nadiifiyey. korkoodii baa la nadiifiyo caadadii iyo dhiiggii dhalmada iyo candhuuftii iyo saxaradii iyo dhididkii, waxaasoo dhan waa laga nadiifiyey. kalkoodii baa la nadiifiyo cadhadii iyo akhlaaq xumadii iyo qayladii iyo murankii, wax kastoo dhaqan xumaaba waa laga nadiifiyey. wahum yagu fiihaa ay fi ljannati, jannada dhexdeeda khaaliduuna waa kuwa ku waaraya
oo weligood ku jiraya, waana liibaantii ugu dhammayska tirnayd. waayo nicmada ilaahay uu siiyey waa mid joogto ah. xaasaskooda xuuralcaynta ah ayay weligood la joogayaan iyo nicmada kale ee ay ku jiraan. ilaahay wuxuu yidhi wamaa hum minhaa bimukhrajiin, wamaa hum iyagu minhaa jannada xaggeeda bimukhrajiin kuwa laga saaraya maaha. ilaahay halkan wuxuu u bashaaraynayaa kuwa ilaahay rumeeyey acmaasha wanaagsanna sameeyey, wuxuu u bashaaraynayaa inay u sugnaatay maalinta qiyaamo jannooyinkaas iyo beerahaas oo hoosteeda ay qulqulayaan webiyo. webiyadana ilaahay wuxuu ku tilmaamay suuratu Muxamed fiiha anhaarun min maa'in ghayri aasin wa anhaarun min labanin lam yataghayyar طacmuh wa anhaarun min khamrin ladhatin lishaaribiin wa anhaarun min casalin musaffaa. waxay jannada dhexdeeda ku haystaan buu ilaahay yidhi togag biyo ah, biyahaasoo aan isbedelin, iyo togag caana ah, caanahaas oo aan naas ka soo bixin ee ilaahay sidaa uu ku abuuray, caanahaas oo dhadhankoodu aanu isbedelayn. togag khamri ayay haystaan, khamriguna khamriga adduunyada lama mid aha, khamrigaan lagu sarkhaamayn oo aad u macaan. wa anhaarun min casalin musaffa, waxay kaloo haystaan togag malab ah, malab saafiya weliba, malabkaas oo aanay shiniye samaynin. waayo malabka waxay idhaahdaan haddaad ammaanaysana waxaad tidhahdaa waa malab, haddaad caayaysana waxaad tidhahdaa waa matag shiniyeed. ilaahay baa isaga sidaa ku abuuray oo waa saafi. webiyada ama togagaa jannada dhex maraya yacni ma aha kuwa dhulka jeexanaya, dhulka ayay saa u dul cararayaan, mana fatahayaan oo meel aan loogu talagelin ma marayaan. alcallaamatu ibnulqayim raximahu llahu tacaala wuxuu ku yidhi nuuniyadiisa anhaaruhaa fii gayri ukhduudin jarat subxaana mumsikihaa can ilfaydaani. togaga jannadu waxay soconayaan iyagoo aan meel jeexanin oo dhulkii aan gud ka samaysanin. subxaana mumsikihaa can ilfaydaani, xumaanoo dhan waxaa ka fog allaha ka haya inay fatahaan oo meel aan loogu talagelin ay maraan. annahu luqadda carbeed waxaa la yidhahdaa dhulka ay biyuhu jeexaan, dhulka ay biyuhu jeexaan ee ay qodaan ayaa nahri la yidhahdaa. waxaa kaloo la siinayaa midho ayaa lagu arsaaqaya iyo waxay cunaan. markaas midhihii xagga midabka waa iskaga mid, laakiin xaggii dhadhanka ayay ku kala duwan yihin oo ay ku kala tegayaan. ilaahay wuxuu inoogu sheegay jannada dhexdeeda inay ku haystaan xaasas, dumar xuurun ciin ah. waa kuwa cadcad oo indho waaweyn, waa kuwa ilaahay uu nadiifiyey oo wasakhoo dhan uu ka nadiifiyey, ha noqoto mid muuqata ama ha noqoto mid dabeecadoo qarsoon. laakiin ahlucilmigu waxay tilmaamaan dumarka adduunyada joogee muslimaadka ah marka ay jannada galaan inay ka qurux badnaanayaan alxuurulciin. se ilaahayba u tilmaamay innaa ansha'naahunna inshaa'a fajacalnaahunna abkaara curban atraaba. waxaanu abuurnay buu ilaahay yidhi abuurid, waxaanu ka yeelnay kuwa bikirah oo aan hore loogu tegin, curuban kuwa rag jecel baanu ka yeelnay oo raggooda jecel, atraaba kuwa isda' la-eg ayaanu ka dhignay. jamcu tirbin weeye atraaba. jannadaas iyo nicmada ay haystaan iyo badhaadhaha ah waa mid ay ku waarayaan oo weligoodba ay ku jirayaan oo aanay ka baxaynin. aayaddan ku xigta ilaahay wuxuu soo dejiyey isagoo ugu jawaabaya yuhuudda markuu ilaahay ku tilmaamay qur-aanka, oo yuhuuddu waxay yidhaahdeen waa maxay qur-aanka ka warramaya duqsiga iyo caarada iyo quraanjada, waxyaabahan liita qur-aankan ka hadlaya waa maxay? markaas ilaahay
waxyaabaha markuu keenayo ee qur-aanka uu ku keenayo xikmad iyo ujeedo aanay fahmaynin ayuu ilaahay subxaanahu watacaala ku caddaynaya. ina allaha ilaahay laa yastaxyii kama xishoodo, ilaahay sifada xishoodka waynu u sugaynaa, an yadriba inuu ka yeelo mathalan tusaale, maa shay, shaygaasoo bacuudatan kaneeca ah, famaa fawqahaa, famaa iyo shay fawqahaa ka weyn ama ka yar, ay famaa duunaha. ilaahay kama xishooda inuu tusaale ka dhigo. an yadriba bimacnaa an yajcala wey, laba mafcuul ayay qaadanaysaa, inuu ka ahaysiiyo. maalan haddaynu mafcuulkii hore ka dhigno, maana aynu nakiro ka dhigno, aynu ku sifayno bacuudatan, fa ama aladiina kuwii aamanuu rumeeyey, wixii ay rumeeyeen baa la xadfay, waayo wax kastoo ilaahay uu farayba way rumeeyeen. fayaclamuuna waxay ogsoon yihiin annahu ay ana almathala tusaalahaasi alxaqu inuu xaq yahay, yacni mid sugan oo dhacaya uu yahay. min rabbihim inuu xagga rabbigood ka yimi ayay og yihiin. wa ama aladiina kuwii kafaruu gaaloobay, fayaquuluuna waxay odhanayaan maadaa maxay buu araada allaahu ilaahay uga jeedaa bihaadaa kan mathalan xagga tusaalaha, muxuu ilaahay kan uga jeedaa? waa istifhaam inkaariya, waa weydiin ay diidma ku jirto oo ay diidan yihiin oo ay leeyihiin waa maxay faa'iidada ku jirta. ilaahay wuxuu yidhi isagoo iyaga u jawaabaya, yudilu ilaahay waa ku luminaya bihi ay bihaada almathali tusaalaha kaiiran in fara badan ayuu ilaahay ku luminaya oo xaqii uu ku seejinaya, waayo way ka gaaloobayaan. wayahdii ilaahay waa ku hanuuninaya bihi tusaalahaas kaiiran in badan oo dadka ka mid ah, waayo way rumaynayaan oo way raacayaan, waxaanay garanayaan inuu xagga rabbigood ka yimi. wamaa yudilu ilaahay ma lumiyo bihi tusaalaha kuma lumiyo ila alfaasiqiin, kuwa ilaahay daacadiisa iyo ogolaanshihiisa ka baxay mooyaane cid kale kuma lumiyo. ibnu cabbaas radia allaahu canhu ciddaa ku lumaysa wuxuu ku tilmaamayaa munaafiqiinta, ciddaa ilaahay uu ku hanuuninayana wuxuu ku tilmaamayaa mu'miniinta. markaa mu'miniintiina waxay kororsanayaan hanuun iyo iimaan, munaafiqiintiina waxay kororsanayaan baadi. aladiina kuwaasoo waxaa la sifaynayaa kuwa daacada ilaahay ka baxay ee faasiqiinta ah. aladiina kuwaasoo yanquduuna burinaya cahda allaahi ilaahay ballankiisii, ballanku ilaahay kutubtii hore kula galay ayay burinayaan. min bacdi miithaaqihi intii la adkeeyey kadib ayay burinayaan. wayaqtacuuna jaraya oo goynaya maa shay amara allaahu ilaahay uu faray bihi maagaba ama shaygaba an yuusala in la xidhiidhiyo. marka an yuusala masdarka halkaa laga soo dhalaalinayo ee iisaalihii noqonaya wuxuu bedel ka noqonayaa bihi oo wada socota. macnuhuna wuxuu dhacayaa wayaqtacuuna waxay jarayaan maa shay amara allaahu ilaahay uu faray bihi isagaba, an yuusala ay biiisaalihi xidhiidhintiisa, shaygu ilaahay faray ayay goynayaan waana xidhiidhinayn. wayufsiduuna waxay xumaynayaan oo ay kharibayaan fil ardi dhulka dhexdiisa ayay ku xumaynayaan, ay bilmacaasi macaasi bay ku xumaynayaan, watacwiiqi can iliimaan iyo iimaanka inay hor istaagaan. ulaa'ika kuwaas lasoo tilmaamay hum yagunbaa alkhaasiruun kuwa khasaaray ah. sababtay u khasaarina waxa weeye waxay ku dambaynayaan naar ay weligood ku jirayaan. kayfa sibaa takfuruuna u gaaloobaysaan billaahi ilaahay aad uga gaaloobaysaan, wa kuntum ay walxaal qad kuntum aad ahaydeen amwaatan kuwa dhintay, yacni kuwa aan jirin ama candhuuf yar aad ahaydeen.
oo dhabarka aabbaha iyo raximka hooyada ku jirta. fa axyaakum ilaahay uu idin nooleeyey oo uu idinku nooleeyey uurka hooyooyinkii iyo adduunyadaba. sidaad u gaaloobaysaa? wa istifhaamun litacajub, isweydiin tacajub ama la yaabo ku jira weeye, ama waa canaan lagu canaananayo gaalnimada ilaahay ay ka gaaloobeen. uma dabadeetana ilaahay yumiitukum waa idin dilaya markay ajashiinu dhammaato. uma dabadeetana yuxyiikum ilaahay waa idin noolayn doonaa oo uu idin soo saari doonaa. uma intaa kadibna ilayhi xaggiisoo keliya ayaa turjacuuna laydin celin doonaa. markaasaa laydin xisaabin doonaa oo laydin abaal marin doonaa. huwa ilaahay alladii kii weeye khalaqa abuuray lakum idinka daraaddiin oo abuuray maa shay fil ardi dhulka dhexdiisa ku sugnaaday jamiican xaalu dhan yahay. wuxuu abuuray si aad ugu intifaacdaan oo aad uga cibro qaadataan. uma intaa kadibna istawaa wuxuu u qastay oo uu doonay ila asamaa'i xagga kore, fasawaahunna wuxuu ka ahaysiiyey samooyinkii 7 samaawaat 7 samo. wa huwa ilaahay bikulli shayin shay kastaba wuxuu ahaaday caliimun mid u ogaal badan, si guud iyo si faahfaahsanba. marka miyaan idinku cibro qaadanaynin? allaha dhulka abuuray ee 7 cir abuuray inuu idin soo celinayo miyaana idin ogsoonayn? وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وإذ قال ربك أي واذكر واحد حستاني محمد إذ وقتي قال ويده ربك ربك وكيد للملائكة ملائكة إني أنا جاعل مد هيسين يبان هي في الأرض دولك مد يكسغنت هي خليفة عد إسقدم بيسا وأحكامتي شرعية كفلسة. عدة سنة النبي آدم عليه الصلاة والسلام. مركا إذ ظرف كاسي وحيا لابوسكي مفعول به ظرف لمن الله ما معنينه. قالوا وحيد هذه الملائكة أتجعلوا موحد كي ليس وأتكاهيسين ليس فيها دولك دحدي سميدا يكسغان تهي من عد يفسد فسهادية أو خريبة فيها دولك دحديس ومعاصي حمان كفسهادية ويسفك أضادية الدماء ديقة أو ديقة حق درك الضادية والحال بات ساسمين إلهي ونحن أنه نسبح آن تصبيح صنه بحمدك أي متلبسين بحمدك حال آن كل ما نينينه أما آن كل يهين تسبيح ذاته وأن لنا سبحان الله وبحمده ونقدس حال آن نقدسين وطهرينه لك أديك. مثلا لام تاسي ومزيدة للتوكيد أي علماء الهدين معنه نوحو دعيا ونقدسك أي ننزهك. كإلهي طهرات لا طهريو حمانو دن لغا فوغينيو ما aha marka hore inuu ilaahay xumaan u dhow yahay ee waa ka fog yahay, laakiin waxay ku cibaadeysanayaan tahirida ilaahay ay ka fogeynayaan xumaanta. marka waxay u jeedaan annaga ayaa mudan inaanu dhulka joogno oo aanu degno. qaala wuxuu ilaahay yidhi innii anugu aclamu waxaan u aqoon badanahay oo aan ogsoonahay maa laa taclamuun wax aanay ogsoonayn. يعني مصالح ذكاء دلانaysa inaan aadam iyo ubadkiisa dhulka ku beero ayaan idin ogsoonayn. waayo tarantiisu waxay noqon doontaa mid ilaahay ateeca iyo mid ilaahay caasiya. marka malaa'igtu waxay sidaahdeen culimada mufassiriinta ay tilmaamayaan ilaahay ma abuurayo cid idinka karaamo badan oo idinka aqoon badan. markaas ilaahay wuxuu muujinayaa nabi aadam calayhi salaatu wassalaam cilmiga uu siiyey iyo sida uu karaameeyey. وعلم إلهي وبري آدم النبي آدم الأسماء أي أسماء المسميات شيء كستأو مقع له مقعيسي أيو بري كلها دمانتيت قلبك أيو قلي أو كل هامي. ثم انتهى كدبنا عرضهم وحو أصوبا لكي أشيادي على الملائكة ملائكة بصوبا لكي كعرضهم ضمير كاسي
وجمع مذكرة أي كل عيا روح على حوق بالنسيي عدي عقلي الله فقال وحولي لحي أنبئوني وحدي قورنتان بأسماء هؤلاء كون مقعيدوده أشياء بل مقعيدوده يقورهم ويشيغا إن كنتم هداتهين صادقين كورهم شيغية وأدوغا مدنتهين نبي آدم إنو إلهي للك خليف ودقه مركا فعل الشرطية جوابتي سوحي نتسنى وحكاه الرئية استحوق بدنا وحنو قرنينا جواب الشرطي بنان صهر مركرين حالدها قاركود موياني قالوا حيلا سبحانك إلهي وانك نزهات لا علم أقون لنا أنك نومي سغنان إلا ما كيمو يعني علمتنا عدنا برتي إياه إساق إنك أدوغ أنت إلهي العليم مد علم بدن باتحي ووحك استأق الحكيم مد حكمت بدن باتحي وشيك استوى ماشاكو حبون لقاه مركا إنك أنت وتأكيد أي نقونيسا وكافته هرئ أي أتكينيسا قال وحو إلهي يلي يا آدم أنبئهم وحد أغورنتاه هم ملائكة بأسمائهم أشياء مقعيدودة كسا شيء كستوى مقعيسي أيو كنت المامي وكوحا حدفا فأنبأهم وأغورهم فلما أنبأهم مركي أغورهم آدم بأسمائهم مقعيدودي قال وحو إلهي يلي سوى عنانيا ألم أقل لكم ميانا إذن كورا إني أنبو أعلم وحن أكسونهي غيب السماوات والأرض لولالك إيا سموينك وحكم مقان أيان أغهي وأعلم وحن أغهي ميانا إذن كورا ما تبدون وحعاد موجسان إيسان إهد الكينة وما إيا شيء كنتم هذا هايدين تكتمون أي تكتمونه كو قرية كأهل العلم قاركود بوحي ليهم وحي موجسانيين هذا الكي يكون واقعين أها أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وحي قرسانيين وحي هاي لن يخلق أكرم عليه منا ولا أعلم القاسين كتوجننا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.